qorshaha lagu dhisayay maamulka cusub ee laga yeglelayo magaalada Garbaharey oo la isku khilaafay iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo ku kala tagay qorshe cusub oo ay markaasi ku soo howlgalayaan Maxamuud Sayid Aadan iyo kooxdiisa soo dhawada wada haday tahay markaas kuugu horeysay ee soo booqato halkan subscribe noo saarno like garee muuqaalkan wad ku mahadsan tahay soo booqashadaada wararka laga helayo Villa Soomaaliya waxa ay ku waramayaan in madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Xamza Cabdi Barre ay ku kala tageen guud ahaanba dhismaha maamulka cusub ee laga yeglelayo gudaha magaalada Garbaharey ee xarunta gobolka Segedo talabadan ayaa timid ka gadaal markii ra'iisul wasaaruhu dhawaan uu soo jeediyay in guud ahaanba hanaanka lagu dhisayo Jubbaland cusub ay tahay mid baalmarsan sharciyada waxana uu sheegay ra'iisul wasaaruhu in guud ahaanba qaabka loo dhisayo laga qaybgeliyo guud ahaanba qaybaha kala duwan ee bulshada ay noqotana guud ahaanba qorsho guud oo qaran waxana uu sheegay in talaabadaasi guud ahaanba dawladdu gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda uu ka biyadiiday dhismaha maamulkan cusub ayaa la tilmaamayaa in madaxweynuhu uu qorsheynayo in beesha degta gobolka Gedo guud ahaanba ay hogaamiso isla markaana madaxweyne looga dhigo halka sidoo kale ra'iisul wasaaruhuna uu doonayo in beeshiisu ay hogaamiso guud ahaanba Jubbaland isla markaana kursiga kaliya laga bedelo Axmed Madoobe isla markaana lagu bedelo shakhsi ku hayba waxaa la tilmaamayaa dhinacyadu inay ku hardamayaan hadba cidda markaas laga dhigayo waxaase la tilmaamayaa hadda guud ahaanba in madaxweynuhu iyo sidoo kale ra'iisul wasaaruhu arrintaasi ay fooda isku dareen isla markaana ay ku kala tageen madaxweynaha waxaa la tilmaamayaa inuu hadda diyaarinayo qorshe guud ahaanba xilka looga tuurayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Xamza Cabdi Barre kaasi oo uusan u arkin in guud ahaanba xaaladan kala guurka uusan ka bixi karaynin waxaana la tilmaamayaa inuu abaabulayo xildhibaano saaxiibo dhow la ah madaxweynuhu isla markaana guud ahaanba waxa uu doonayaa fadhiga koobaad ee ay yeelanayaan baarlamaanka golaha shacabka in guud ahaanba xilka looga tuuro ra'iisul wasaaraha xukuumadda xildhibaano ku sugan gudaha magaalada Nairobi ee caasimadda waddankaasi Kenya ayaana la tilmaamayaa in madaxweynuhu uu ku wargeliyay guud ahaanba inay soo abaabulaan booshin talada looga ceyrinayo xukuumadda ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre shalay khudbad uu jeediyay ra'iisul wasaaruhu waxa ay u muuqatay mid quusa isla markaana guud ahaanba uu ku sagootinayo kursiga ra'iisul wasaaraha xukuumadda ka gadaal markii guud ahaanba uu soo bandhigay hadallo u muuqanayay macsalaameyn kuwaasi oo guud ahaanba uu kursiga ku banneyn karo waxaa la tilmaamayaa in hardanka guud ahaan looga jiro dhismaha maamulka cusub ee Jubbaland ee laga yeglelayo magaalada Garbaharey in guud ahaanba meel gabagaba uu marayo waxaa la tilmaamayaa in midkood laga dhigayo madaxweynaha Jubbaland cusub ee laga yeglelayo magaalada Garbaharey Cabdirashiid Janan iyo sidoo kale Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag waxaana la tilmaamayaa in labadaasi nin ay doonayso dawladdu inay halkaasi geyso halka sidoo kale la tilmaamayo in guud ahaanba ra'iisul wasaare Xamza uu doonayay in laga dhigo Ilyas Gabose kaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku xayirnaa gudaha magaalada Kismaayo waxaana la tilmaamayaa in guud ahaanba talaabadaasi lagu gacan sayray madaxweynahuna uu ka biyadiiday qorshaha guud ahaanba beesha ra'iisul wasaaruhu mar kale xilkaasi looga soo celinayo waxaana la tilmaamayaa in talaabadaasi muddooyinkii ugu dambeeyay ay dhinacyadu isku khilaafeen isla markaana lagu kala tagay Maxamuud Sayid Aadan iyo sidoo kale Axmed Maxamed Islaam iyaguna dhankoodu waxay abaabulayaan abaabulo xoogan oo guud ahaanba xukuumadda talada joogta ka dhana waxaana la tilmaamayaa in ciidamo u abaabulan qaabeeleed iyo sidoo kale kuba kale oo Jubbaland ka mid yihiin ay iyaguna abaabulayaan si markaasi ay uga jibiyaan xukuumadda talada joogta iyo sidoo kale ciidamada dawladdu ay geysay gobolkaasi Gedo waxaana la tilmaamayaa in hadda ciidamo gaaraya ilaa iyo 3,000 oo askari kuwaasi oo guud ahaanba laga soo kala xulay qaybaha kala duwan ee ciidamada Jubbaland in laga dejinayo magaalooyinka Doolow iyo sidoo kale Ceelwaaq ee gobolkaasi Gedo si loo sii ambaqaado wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah dawladda ay halkaasi ka wadaan waxa ay qorsheynayaan in ciidamadaasi ay geeyaan sidoo kale magaalada Mandheera si ay u wajahaan guud ahaanba dagaal ka dhana dawladda isla markaana ay gacanta uga dhigaan magaalada Balad Xawo oo dhawaan dawladda federaalka Soomaaliya ay ka gacan maroojisay waxaa la tilmaamayaa Maxamuud Sayid Aadan oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Mandheera inuu abaabul xoogan wado isla markaana waxa uu hubiyo sanad ciidan ka helaya dawladaha Kenya iyo Ethiopia kuwaasi oo taageersan guud ahaanba Jubbaland isla markaana ka soo horjeeda qorshaha dhismaha maamulka cusub ee laga yeglelayo Jubbaland waxaana la tilmaamayaa guud ahaanba talaabadaasi in ay si weyn u diidan yihiin dhinacyadu abaabulkan iska soo horjeeda ee ciidan ee dhinacyadu ay sameynayaan ayaa u muuqanaya guud ahaan kuba lagu kala tegi karo waxayse u muuqanaysaa in Jubbaland ay mar kale qaadi karto weerar culus kuwaasi oo guud ahaanba
ay ku wajahayso dowladda dhexe ee Soomaaliya. Cabdirashiid Yanan ayaa dhankiisa waxa uu maalmihii ugu dambeeyay ciidamo kala duwan ka qoranayay gudaha magaalooyinka waaweyn ee gobolka Gedo, kuwaasi oo guud ahaanba tababaro kala duwan ay ku qaadanayeen xero UK oo ku taala duleedka magaalada Balad Xawo, waxaana la tilmaamayaa dowladdu in ciidamo kale oo dheeraad ahi ay halkaasi ku daabulayso, kuwaasi oo noocyada kala duwan ee ciidamada qalabka sida ay qayb ka yihiin. Waxaana la tilmaamayaa ciidamo gaaraya tiro ahaan ilaa iyo 5,000 oo askari in dowladda federaalka Soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyayba ay ku daabulaysa gobolkaasi Gedo, gaar ahaan magaalada Balad Xawo, halkaasi oo dagaal uu ka dhacay dhowaan. Waxaana la tilmaamayaa hadda in ay xoojinaysa amniga guud ee gobolka. Ciidamo tiro beel ah ayaana la tilmaamayaa dowladdu inay qorsheynaysa in ay geyso magaalada Garbaharey, halkaasi oo laga sii ambaqaadayo wejiga koowaad ee dhismaha maamulka cusub ee halkaasi laga dhisayo. Waxaana la tilmaamayaa isimada beelaha in halkaasi la geynayo iyo sidoo kale siyaasiyiin isugu jira xildhibaano iyo sidoo kale wasiiro, kuwaasi oo tagaya gudaha magaalada Garbaharey si ay uga qayb qaataan guud ahaanba dhismaha maamulka cusub ee halkaasi laga dhisayo. Walow si weyn looga muransan yahay isla markaana beesha uu ka soo jeeda Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ay si weyn u diidan tahay qorshaha dhismaha maamulkaasi, haddana waxaa la tilmaamayaa in la isku raacsan yahay guud ahaanba in talada laga cayriyo Axmed Maxamed Islaam Madoobe, kaasi oo 15 sano ee lasoo dhaafay kursiga maamulka Jubbaland ee ugu sareeya isaga hogaaminayay, isla markaana aanan doonaynin mar kale isaga laga bedelo. Waxaana la tilmaamayaa in dowladdu markan xeelad ama xoog miduma ay ku maquunin doonto Axmed Madoobe si ay talada uga cayriso, waxaana ay noqonaysaa Jubbaland kala jaban, isla markaana laba garab u kala jaban, laba maamul oo markaasi ka wada arriminaya 3 gobol oo markaasi ku yaala Jubbaland. Waxayna noqonaysaa tallaabo culus oo dhinacyada muddooyinkii ugu dambeeya ay ka wada shaqaynayeen. Miiska wada hadalka ayay dhinacyada mucaaradka ay ku baaqeen in lagu xaliyo arrinta gobolka Gedo, waxaana la tilmaamayaa in guud ahaanba tallaabadaasi dowladdu ay si weyn u diiday, isla markaana waxa ay doonaysaa in awood lagu maquuniyo Axmed Maxamed Islaam Madoobe, kaasi oo si weyn isu awood bidayo ka gadaal markii dowladdii tani ka horreysay uu kaga adkaaday saaxada siyaasadda Soomaaliya. Markana waxa uu doonayaa xukuumadda talada joogta mar kale inuu ka adkaado ka gadaal markii guud ahaanba dhowaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo xoogan halkaasi ay ka abaabulayeen. Markan waxa uu doonayaa in doolow iyo sidoo kale magaalada Ceelwaaq uu ka soo geliyo ciidamo tiro beel ah, kuwaasi oo uu ku jibinayo dhinacyada halkaasi ka abaabulan oo dowladdu ay ugu horeyso. Waxaana la tilmaamayaa in gudoomiye Lafay oo ah gudoomiyaha magaalada Doolow uu isagu arrintaasi u wakiilanayo ka gadaal markii la sheegay in warqadiisa la qoray, isla markaana laga dhigayo wasiirka amniga gudaha maamulka Jubbaland. Waxaana la tilmaamayaa in isaga uu xudxudanayo beesha halkaasi degto si markaasi uu uga helo ciidamo lagu jibinayo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaana qorshahaasi si weyn muddooyinkii ugu dambeeyay uga shaqaynayay Maxamuud Sayid Aadan iyo sidoo kale Axmed Maxamed Islaam Madoobe oo hogaaminayo maamulka Jubbaland. dhaqdhaqaaqyada culus ee halkaasi ka jira ayaana u muuqanaya kuba marba markii kasii dambeysa xargaha sii goosanaya. Dowladduna waxa ay doonaysaa in sidoo kale ciidamo kale oo dheeraad ah oo kuwa masaarida ahi dhowaan halkaasi la keeno, kuwaasi oo qayb ka ah howlgalka dhowaan galka ah ee Soomaaliya ka curtay ee AUSOM. waxaana la tilmaamayaa in dhowaan guud ahaanba xaalad kale gobolka uu geli karo haddii aanan xal waara laga gaarin khilaafka ka dhex xaluusan maamulka Jubbaland iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya.